كدم بيسي 20 مليون almost العكودو ولا سو xareeyay hada dib baa lagu soo celiyay dadkii dad badan waa la xukumay qaar xabsiga laga laalay baa jira markii loo arkay inay lacagtina bixiyeen ay yar loo naxariistay iyo habkii lacagta ku galeen kuwana xabsiga ku jiraan kuwana eedi baa ku furan waxa kale oo jira dadaalada xafiisku sameeyay waxa kamid ah in hanti dawladeed badan si weyn loo difaacay 178 milyan dacwada ah oo federaalka naga furnaan ku guuleysanay oo hanti dawladeed la qaadan lahaa oo shirkado si sharci darro ah kiisas inday maxkamadaha federaalka uga fureen doonayay inay bangiyada kala baxaan lacagta deegaanka Soomaalida ayaan ka hor istaagnay in ka badan 200 milyan doodii baa noo socota 170 milyan oo ku guuleysanay iyo 8 milyan 178 milyan 200 milyan dacwada ka badan way socdaan hadda federaalka ka socdaan heer deegaan 33 milyan dacwada ah ayay ka socda oo hantida dawladda lagu difaacayo dacwada dhul baa socda oo fara badan oo dhul dawladeed dadku ay dabcan si sharci darro ku qaataan oo laga hor istaagay oo councilada iyo maamul magaalooyinka iyo gobolada ku yaala iyo xarunta jigaba marka sanadkan waxaan oran karnaa waa sanadkii koobaad ee si weyn hantida dawladda iyo resource-ga dawladda ee public-ga dadka ka dhaxeeya loo difaacay inaan si sharci darro ah la iskaga qaadanin marka guulaha laga gaaray ayna taasuna kamid tahay wax ku xirnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim dagaal media waa saaxiibka dadweynaha